السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحين جانك رومان ميديا وحاني لا رمضان ونكسن وحمانتني سو جيدين دونا برامجك وحكوغو تاريخ دا شخصية دا maanta waxaan barnaamijka ku marti mise aan ku xus doonaa saxaabigii Cabdullaahi ibn Cabbaas haligii islaamka Cabdullaahi ibn Cabbaas waxay ilma adeer ahaayeen nabiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ahaa saxaabigii ugu aqoonta badnaa markii la eego tafsiirka iyo macnaha xaasha dheer ee Quraanka Kariim rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa arintaas ugu duceeyay wuxuuna caan ku ahaa alla ka cabsiga wuxuuna badan jiray soonka salaada habeen walba asigoo u taagnaan jiray qaadirkii weynaa ee abuuray markastana weydiisan jiray dambi dhaaf iyo raali gelin ahaansha Cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa saxaabigii ugu da'deeraa wuxuuna dhashay 3 sano ka hor hijriyadii markii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu dhintay waxayna da'diisu ahayd 13 sano jir sidaas oo ay tahay Cabdullaahi ibn Cabbaas wuxuu alla ku xafiday inuu xifdiyo 660 xadiis oo ay imaamyada Bukhari iyo Islaamkii ku sugeen kutubtooda Cabdullaahi ibn Cabbaas Allah ka raali noqday markii da'diisu ay 7 sano jir wuxuu u adeegi jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu doonayo salaada oo u diyaarin jiray weysada markii uu rasuulka salaada galo wuxuu ku tukan jiray gadaashiisa nabiga aad ay u jeclaay la jirkiisa iyo la joogis Cabdullaahi ibn Cabbaas saas darteed wuxuu raaci jiray kolkii uu rasuulka qabanay safarada Cabdullaahi wuxuu ahaa saxaabigii oo alla ku manaystay xigmada iyo aragti dheer arintaas waxa ugu duceeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuuna alla ugu bariyay inuu siiyo xigmad allana uuna ka aqbalay ducadii nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam intuu rasuulka ifku ku noolaa wuxuu Cabdullaahi ibn Cabbaas cilmiga ka biyacabi jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam asa ahaatee kolkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam haleelay saaxiibkii saarnaa waana wuxuuna u jeestay xagga saxaabada culimada asigoo ka baranaya aqoonta iyo barashada diinta islaamka Cabdullaahi ibn Cabbaas asigoo ka hadlaya sida uu dilban jiray wadada cilmiga wuxuuna yiri hadii aan maqlo nin ka mid ah saxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa aadi jiray iridka gurigiisa waqtiyada duhurka kolkii baa barkan jiray go'aanka aan wato anigoo seexan jiray albaabka agtiisa haddii aan doonan waxaan ka dalban jiray inaan u galo guriga gudihiisa markiiba wuu ii fasixi jiray wuxuuna i weydiin jiray sababtaan u soo yimid halkan wuxuuna ugu jawaabi jiray waxaan rabaa inaan ka aqoon gararsado waayo cilmigu waa loo tagaa ee asiga kuma yimaado dabadeedna waxaan weydiin jiray xadiiska aan doonayo inaan ka ogaado sida ayuu u weynaa cilmiga Cabdullaahi ibn Cabbaas jiray wuxuuna huri jiray halista barashada cilmiga sidoo uu Cabdullaahi u qadarin jiray barashada cilmiga ayaana misna u weyneyn jiray culimada aqoonta u leh diinta islaamka haddii aan tusaale ka soo qaato mid ka mid ah dadkii uu qadarin jiray Cabdullaahi ibn Cabbaas ayaa ahaa Zayd bin Thaabit oo ahaa qoraygii waxyigii dhinaca kale wuxuu ahaa kan ugu aqoonta badan magaalada Madiina markii laga hadlo cilmiga garsoorka fiqiga qaraa'ida aqrinta toosan ee tajwiidka iyo cilmiga dhaxalka hadaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa saxaabigii la yiraahdo Zayd bin Thaabit oo doonaya inuu fuulo ratigiisa waxa ka soo horjoogsaday Cabdullaahi ibn Cabbaas oo doonayo inuu markiiba u hoggaan qabto ratigii oo saarnaa Zayd bin Thaabit ayaa ku yiri war farahaskaga qaad Cabdullaahi ibn Cabbaas ayaa yiri anaga sidaan oo kale ayaana la faray inaan u wanaajino culimadeena Zayd ayaa isla markiiba ku yiri isoo taag gacantaada Cabdullaahi isla markiiba u fidiyay gacantiisa dabadeedna Zayd ayaa sidaan la faray inaan ula dhaqno ahlul baytka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Cabdullaahi ibn Cabbaas oo caado ka dhigin jiray doonista iyo dalabyada cilmiga ilaa uu meel sare ka gaaray cilmiga diinta Masruuc bin Ajdaa oo ka mid ahaa madaxda taabiciinta ardaydii saxaabadii ayaa mar uu faalooyin Cabdullaahi ibn Cabbaas wuxuu ku yiri haddaad aragto Cabdullaahi waxaad ogaanaysaa inuu yahay ninka ugu quruxda badan haddii uu dhawaaqana waa ninka ugu fasaaxada badan xagga hadal uu mar uu sheeganaya waxaad ogaanaysaa inuu yahay kan ugu cilmiga badan Cabdullaahi markii uu dhameystirtay waxbarashada diinta
ayaa wuxuu bilaabay inuu dadka baro diinta. Gurigii Cabdulaahi wuxuu isku beddelay jaamacad ay ka soo baxaan muslimiinta. waa jaamacad markii dhinaca kale laga eego. Waxaynu ognahay in jaamacadaha maanta ay dhigaan macallimiin fara badan oo kala duwan kuwaasoo dhiga maadooyin kala duwan. hase ahaatee jaamacadda Cabdulaahi waxaa dhigi jiray Cabdulaahi oo keliya maadooyin cilmi kala duwan yihiin lagu dhigi jiray. Mid ka mid ah ardaydii dhigi jirtay jaamacad ayaa wuxuu yidhi, waxaan arkay fadhiga ama xalqadda Cabdulaahi oo aan haddii oo Quraysh oo dhan ku faani lahayd oo noqon lahaa faan oo keliya. Waxaan ku yidhi, waxaan arkay dadka oo buuxiyey gurigiisa ilaa ay meesha ka carriisato. Waxaan u talaabay ilan guriga Cabdulaahi dabadeeda wuxuu igu yidhi, isoo dhig biyaan ku isqaato. Wuu isqaatay kadibna wuxuu isku diyaariyey inuu ka jawaabo su'aalihii dhammaan dadkii isoo weydiinayeen. Cabdulaahi bin Cabbaas, Allah ka raali noqdee, wuxuu dunida kaga tagay cilmi fara badan, dhowrsanaan iyo xigmado dhaadheer. Markii Cabdulaahi bin Cabbaas dhintay, da'diisu waxay ahayd 71 sano jir. Waxaa Cabdulaahi bin Cabbaas janaasadiis ka soo qayb galay Maxamed bin al-Xaafiya oo dhalay Cali bin Daalib. Saxaabo iyo taabici fara badan ayaa ka soo qayb galay. Ilaahay ha weyneeyo abaalmarinta Cabdulaahi bin Cabbaas. Aamiin. haddii uu barnaamijkan ku cajibi fadlan like saar. haddii channelkan ku cusub tahay subscribe u share garee walaalka si uu faa'iideysto wax walba oo khayrka